saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta sheekada filimkeenna waxay ku saabsan tahay dembibaare lagu magacaabo Danny Rock kaasoo hadda la kulmay dhakhtaradiisa sababtoo ah wuxuu waayay gabadhiisa intaa dabadeedna Danny wuxuu dib u xasuustay gabadhiisii 7 jirka ahayd ee Minnie waqtigaana Danny gabadhiisa wuxuu weydiistay inay ku soo ciyaarto beerta si kastaba ha ahaatee Danny in muddo ma uusan fiirin gabadhiisa isla markii uu soo jeestana si lama filaana beerta wuxuu uga waayay gabadhiisa ilaa haddana Minnie lama helin sidaa ayaana lagu waayay intaa kadibna Danny waa la xiray sababtoo ah wuxuu dayacay gabadhiisa laakiin lama xukumin asaga sababtoo ah wuxuu qabay cudur xagga dhimirka sidaa darteedna waa la sii daayay asaga dhinaca kalena Minnie wali lama helin haddana markuu dhakhtarada ka soo tagay wuxuu gaariga kula kulmay saaxiibkii Nick intaa kadibna labadooda waxay heleen warbixin qarsoodiya taasoo sheegaysa in la dhacayo bangiga intaa dabadeedna Nick wuxuu sheegay maalmihii ugu dambeeyay in tuugadu ay dhaceen bangiyo kale laakiin waxaa la yaab lahayd in burcadaan ay bartilmaameedsanayaan sanduuqa depositka kaasoo hadda aysan waxba ku jirin markaana tuugadan mar kale waxay bartilmaameedsan doonaan sanduuqaas wax yar kadibna markay meeshaa tageen Danny iyo Nick kamaysan soo degin gaarigooda sidoo kalena hareeraha ayay eegayeen marka horena wax walba waxay ayaga ula muuqdeen inay wanaagsan yihiin ilaa markii dambe ay arkeen inay ka shakiyeen ayaga ninkaana wuxuu ahaa Dalrayn aadna wuxuu khatar ugu ahaa indhasarcaadka haddana naag ayuu goobta ku madiideeyey isla markiina waxay bilowday inay wareerto intaa kadibna wuxuu ku guulaystay inuu madiideeyo ilaalada bangiga haddana Danny wuxuu dareemay inuu helay dambiilaha sidaa darteedna isla markiiba wuxuu aaday qolkii uu yaalay sanduuqa asagoo iska dhigaya xisaabiye laakiin waxaa la yaab lahayd markuu sanduuqa furay inuu ka helay sawirka gabadhiisa haddana Danny aad buu uga shakiyey ninka waxaana hadda soo baxday Dalrayn inuu mar hore soo galay bangigan isla markiina ilaaladii uu horay u soo madiideeyay asaga goobta markay ku soo laabteen rabshad ayay ka bilaabeen dhinaca kalena mid ka mid ah shaqaalaha bangiga uu madiideeyay Dalrayn waxay u soo qaaday qasnadii taargetka u ahayd asaga Danny-na markuu arrintan arkay wuxuu dabagalay naagta isla markiina baskoolad ayuu ku qabtay ayada laakiinse waxaa la yaab lahayd naagta inaysan ka cabsanayn asaga intaa dabadeedna labadii waardiye ayaa meesha yimi isla markiina waxay toogteen asaga nasiib wanaagna Danny wuu badbaaday sababtoo ah wuxuu xirnaa jaakada aysan xabadda karin intaa dabadeedna naagtii shaqaalaha ahayd iyo labadii nin ee ilaalada ahayd goobta ayay isaga tageen dhinaca kalena naagtii uu horay u sixray Dalrayn magaalada bartankeeda ayay dharka iskaga siibtay halkaana qalalaasa ayay ka abuurtay gaarigii ay shaqaalaha bangiga saarnaayeenna shil ayuu halkaa ku galay intaa kadibna Dalrayn meesha wuxuu ka qaatay sanduuqii taargetka u ahaa bam ayuuna gaariga ugu xiray ayaga isla waqtigaana Danny wuxuu arkay Dalrayn oo cararaya asna wuxuu bilaabay inuu soo ceersado ninka wax yar kadibna Dalrayn waxaa qabtay laba ka mid ah askartii la shaqaynaysay Danny isla markiina Dalrayn wuxuu madiideeyay ayaga isla markiina labadii nin waxay bilaabeen inay toogtaan Danny intaa kadibna Danny ninka wuxuu weydiiyey wax ku saabsan gabadhiisa sawirkeeda ayuuna tusay asaga si kastaba ha ahaatee Dalrayn ma uusan u jawaabin asaga sidoo kalena wuxuu ka booday dabaqa Danny-na markuu hubiyey Dalrayn wuu waayey isla waqtigaana labadiisii saaxiib way istoogteen sababtoo ah waa la madiideeyay ayaga markii ninkaa la waayey kadibna Nick wuxuu sheegay in dhammaan dadkii meesha joogay aysan waxba ka xasuusan dhacdadaas sababtoo ah waxa ayaga sixray Dalrayn intaa dabadeedna Danny wuxuu sheegay inuu u malaynayo in Dalrayn uu afduubtay gabadhiisa sababtoo ah sanduuqa uu xadaaya waxaan ka helay sawirka gabadhayda sidaa darteedna aad baan uga shakisanahay asaga habeenkaana Nick wuxuu soo wacay Danny si uu wax ugu sheego haddana asagu wuxuu helay meesha uu ku sugan yahay qof magaciisa qariyay kaasoo asaga isugu sheegay inuu dhacay bangiga goobtaana waxay ahayd isbitaal lagu daaweeyo dadka dhimirka la Danny-na markuu meesha yimi wuxuu goobta kula kulmay milkiilaha meeshan taasoo la yiraahdo Diana Cruz intaa kadibna Danny wuxuu ayada u sheegay ujeedada uu meeshan u yimi iyo wuxuu ka rabo ayada intaa dabadeedna wuxuu ayada u sheegay inuu rabo inuu baaro qof lagu magacaabo Dalrayn laakiinse markay maqashay magaca Dalrayn Diana way argagaxday isla markiina Danny waxay weydiisatay inuu halkaan isaga tago haddana waxaa soo baxday in Dalrayn uu halkaan horay u yimi sidoo kalena uu sixray naagtan saaxiibadeed oo hadda banaanka jooga sidaa darteedna Diana saaxiibkeed hadda wuxuu mooto ku soo weeraray goobtan shil buuna galay asaga intaa kadibna Diana saaxiibkeed wuxuu ayaga u sheegay in Dalrayn aan weligii la joojin doonin asaga ugu dambayntiina halkaa ayuu isku dilay dhacdada kadibna Diana waxaa loo kaxeeyay saldhigga booliska si su'aalo loo weydiiyo ayada waxaana soo baxday dhacdadan iyo rabshadii horay uga dhacday bangiga inay ahaayeen natiijada awoodda sixirka uu isticmaalay Dalrayn Diana-na wax badan ayay ka taqaanay arrinta sababtoo ah ayada xitaa saaxirad ayay ahayd Dalrayn iyo Diana-na hal qayb oo sixirka ka mid ah ayay wada isticmaalayeen laakiinse Dalrayn wuxuu ahaa nin aad u awood badan dabadeedna wuxuu noqday shaydaan sababtoo ah asagu wuxuu ahaa mid aad ugu awood badan
xagga indhasarcaadka kooxda ay isla shaqeeyaan sidaa darteedna Diana iyo saaxiriinta kale waxay isku dayayeen inay joojiyaan asaga dhinaca kalena Nigis asna halkan ayuu joogay mar uusan rumaysan sixirka iyo dhammaan waxay ka sheekaynayso Diana intaa kadibna Diana waxay si dhaqsiyaal ah asaga u tustay awoodeeda waxayna ku guuleysatay inay si fudud u madiidayso asaga Nigisna markuu caadi noqday Dalrayn ayaa sidoo kale halkan yimi si degdegana wuxuu u madiideeyay asaga sidoo kalena korontadii ayaa si lama filaana goobtan uga tagtay isla waqtigaana Nigis baskooladiisa ayuu la soo baxay haddana wuxuu rabay inuu dilo Diana iyo Deni intaa dabadeedna Deni waxay u sheegtay in halkan uu isaga cararo sababtoo ah Nigis waa la sixray haddana ma miir qabo asaga wuxuu ninka u sheegay ayuuna hadda samaynayaa asaga intaa kadibna Nigis gacan ayay ka xireen laakiinse wuxuu isku dayayay inuu baskoolada helo inkastoo dhaawac uu ka soo gaaray gacanta isla markiina Diana waxay ku qasbanaatay inay toogato Nigis ilaa uu ka dhinto asaga dhimashadiisa kadibna Deni iyo Diana goobta ayay isaga baxsadeen maadaama hadda lagu eedeynaayo inay dileen Nigis sidoo kalena labadooda hadda waxay damacsanaayeen inay aadaan Mexico si ay ula kulmaan qof joojin kara Dalrayn wax yar kadibna Shariif ayaa meesha yimi wuxuuna ogaaday Diana iyo Dalrayn inay meeshan joogaan isla waqtigaana Diana waxa u suurta gashay inay madiidayso ninka laakiin si lama filaana Dalrayn ayaa Diana ogala soo xiriiray taleefanka ninka wuxuuna ayadoo u sheegay inuu yimi baarkan markay banaanka u soo baxeenna waxay arkeen Dalrayn iyo laba nin oo boolis ah oo asaga la socota isla markiina waxay hareereeyeen ayaga Denina markuu arrintan arkay wuxuu bilaabay inuu ka cararo booliska nasiib darrase wax yar kadib waa la qabtay asaga laakiinse Diana iyo ninkay madiidaysay waxay ku guuleysteen inay caawiyaan asaga intay wadada ku jireenna Diana Deni waxay u sheegtay inaysan qofna u fuudayn inuu sixro asaga sababtoo adiga dhimirka ayaa ka jiran tahay maxaa yeelay gabadhaada ayaa weysay qofka kaliya adigoo ku sixri karana waa Dalrayn sababtoo aad buu u awood badan yahay asaga intay wadada ku jireenna booliska ayaa istaajiyay ayaga maxaa yeelay roonda ayay wadeen laakiinse hadda mar labaad Diana ayadoo xirfadeeda isticmaalaysa waxay ku guuleysatay in safarkooda ay horay u sii wataan oo aan laga shakin ayaga ugu dambeyntiina labadooda waxay yimaadeen Mexico intaa kadibna meesha waxay kula kulmeen Diana saaxiibkeedii hore kaasoo asna sixroolaa oo la yiraahdo Jeremiah halkaana Jeremiah wuxuu ayaga ugu sheegay in Dalrayn uu raadinayo Domino kaasoo ahaa hub aad u awood badan oo lagu horumarin karo sixirka Dominadaana qofkii hela wuxuu isticmaali karaa sixirka awood badan kan saaxiriinta kale samaynta sixirkaana wuxuu qayb ka yahay qorshaha uu ninkan u xadayo sanduuqyada sidoo kalena uu bangiyada u dhacayo Dalraynna hadduu awooddaa helo wuxuu noqon doonaa mid awood badan oo aan la joojin karin laakiinse arrinta la yaab kale waxay ahayd Dalrayn inuu Jeremiah iska soo dhigay kadib markuu ninkan madiideeyay waana sababtay asaga hadda ugu arkayeen Jeremiah intaa kadibna Deni iyo Diana markay arrintan ogaadeen isla markiiba goobta ayay isaga carareen sidoo kalena waxa ayaga u soo baxday in dadka meeshan jooga oo dhan inuu horay u madiideeyay ninkan intay baxsanayeenna boolis badan ayaa meesha yimi markii la rabay in la xiro ayagana Deni ayaa si lama filaan u indhasarcaadiya booliska intaa kadibna waxay ku guul daraysteen inay qabtaan Dalrayn Denina hadda aad buu u yaabay sababtoo ah si lama filaana asaga xitaa wuxuu u isticmaalay sixir waqti xaadirkaana Diana wuxuu ka codsaday inay ka caawiso siday u aadi lahaayeen meel kale wax yar kadibna Diana iyo Deni waxay la kulmeen Diana saaxiibkeedii hore ee River kaasoo sidoo kale haakar ahaa haddana wuxuu isku dayaayay inuu caawiyo ayaga sababtoo ah wuxuu macluumaad ka helay Deni xaaskiisa Denina wuu yaabay sababtoo ah hadda wuxuu ogaaday xaaskiisa inay weli nooshahay sidoo kalena ayadu waxay ka tirsaneyd koox saaxiriina sida Diana oo kale wax yar kadibna Deni wuxuu wicitaan ka helay Dalrayn sidoo kalena ninka wuxuu isku dayay in taleefanka uu ka madiideeyo asaga intaa kadibna wuxuu asaga ka codsaday inuu dilo Diana nasiib wanaagna Deni weli miirkiisa ayuu qabay Dianana weli waa la badbaadin karaa intaa kadibna Diana iyo River intay wada hurdayeen Deni wuxuu kombiyuutarka River ka ogaaday gabadhiisa inay tahay awoodda la raadinayo sidoo kalena Diana ay xaaskiisa tahay intaa dabadeedna Deni wuxuu u qaatay in Diana ay hore u qaadatay gabadhiisa halka Dianana ay asaga ku eedeynaysay inuu qaatay gabadhooda taasoo kaliyana maaha waqtigan oo dhanna labadooda waxay ku kala jireen laba qol oo kala duwan sababtoo ah Deni waqtigaas oo dhan wuu madiidaysnaa qof kasta oo muddada noloshiisa ku lug lahaana wuxuu ka tirsanaa saaxiriinta kuwaasoo isku dayaya in Deni ay ka ogaadaan meesha saxda ay joogto gabadhiisa intaa kadibna Deni markuu banaanka u soo baxay wuxuu arkay dhammaan waxyaabihii loo isticmaalayay si loo ogaado meesha uu joogo asaga waxaan oo dhanna waxay ahaayeen jilin iyo istabaalis arrintan oo dhanna waxaa loo sameynayay si loo ogaado meesha dhabta uu Deni ku qariyay gabadhiisa Denina ugu dambeyntii hadda wuxuu go'aansaday inuusan ayaga u sheegin meesha dhabta ay joogto gabadhiisa inkastoo qaar ka mid ah kooxdan ay asaga qasbayeen Dalraynna markaa muuqaalkeena wuxuu dib ugu celinayaa bilowgii
markaasoo deeni uu joogay dhakhtarka dhimirka. inkastoo hadda lama diideeyay asagana wax walba waxay ugu socdeen si habsami leh, si la mid ah sidii aan ku soo aragnay bilowgii filimka. laakiin deeni wax yar kadib wuxuu rabay inuu galo bangiga. markuu soo kacayna wuxuu isku dayay inuu meesha ka baxsado. dhinaca kalena Diana waxay ogaatay Dalrayn inuusan magac qofeed ahayn, laakiinse ay tahay magac goob. waxaana si bareera magaca warqadda ugu qoray Deeni si uu u xasuusto meesha ay ku sugan tahay gabadhiisa. wax yar kadibna Deeni wuxuu yimi beeray lahaayeen waalidiintii asaga soo korsatay. halkaa ayuuna Deeni kula kulmay gabadhiisa. haddana Minnie way kortay, sababtoo ah Deeni muddo dheer ma uusan soo booqan ayada. dhinaca kalena Dalrayn iyo kooxdiisa ayaa halkan yimi ayagoo aad u hubaysan. isla markiina hooyadii soo korsatay Deeni waxay isku dayday inay ka hortagto ayaga, laakiin halkaas ayay ku dhimatay kadib markay ayada toogteen qaar ka mid a burcadaas. wax yar kadibna Deeni iyo gabadhiisa waxay isaga tageen gurigaas. isla markiina Minnie ayadoo madiidaynaysa burcadda waxay ku qasabtay inay islaayaan. awoodeeda ayayna meesha ku soo bandhigtay. haddana waxaa soo baxday inaysan horay halkan u joogin, laakiinse arrintan oo dhan ay ahayd dabin loo dhigay saaxiriinta si loogu shirqoolo meeshan. dhammaantoodna si guulla ayay u madiidaysa ayada. sidoo kalena Minnie ayadoo awoodeeda adeegsanaysa Dalrayn waxay ku qasabtay inuu isdilo asaga. ugu dambayntiina waxaa la ogaaday Deeni iyo Diana inay ahaayeen xibno ka tirsan saaxiriinta kale. maalin maalmaha ka midana waxaa ayaga u dhashay gabadhooda Minnie, taasoo dhaxashay awooddii sixirka ee waalidiinteed. si kastaba ha ahaatee Minnie aad bay uga awood badnayd ayaga. saaxiriintuna markay arrintan ogaadeen waxay damceen inay isticmaalaan awoodda xaddhaafka ah ee gabadha. si kastaba ha ahaatee Deeni iyo Diana ma aysan aqbalin arrinta. sidaa darteedna Deeni iyo Diana gabadhooda waxay u geeyeen waalidiintood si loogu koriyo ayaga. dhinaca kalena Deeni iyo Diana khiyaano ayay sameeyeen, waxayna iska dhigeen in ayaga gabadhooda ay ka maqan tahay. sawirka gabadhaana horay ayaga ayaa sanduuqa ugu riday. arrintaana waxay u samaynayeen si mar walba ay u xasuustaan meesha ay joogto gabadhooda. intaa kadibna markii la dilay dhammaan xubnihii saaxiriinta, ugu dambayn qoyskii Deeni xor ayay noqdeen. haddana mar kale ayay dib u midoobeen. si kastaba ha ahaatee hadda waxaan ogaanaynaa Dalrayn inuu weli nool yahay, sababtoo ah wuxuu ku guulaystay inuu isku ekaysiiyo aabbihii soo korsaday Deeni. haddana qofka dhinta wuxuu ahaa Deeni aabbihiisii dhabta ahaa, halkii uu ka dhiman lahaa Dalrayn. filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday. haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeenna laag saar, sidoo kalena janalkeenna ku soo biiro subscribe dheh. waa ku mahadsan tahay la joogistaada.